وله من في السماوات والأرض كل له خالدون. barashada afka Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaalida dhibaatada meesha jirta waxa weeye gabayadii iyo wixii si loo fahmo oo loo appreciate karayo waan af Soomaaliga marka hore la yaqaan Soomaali oo maaragtay kelmadihii la fahmo macnahooda dhalinyaradu ay af Soomaaliga qoraalkiisa iyo ku hadalkiisa barataa marka waxaan idin sheegayaa kulli dad kale waa isku dayeen laakiin muddo badan kulli ayaan halkan annagu oran jirnay ciyaalka af Soomaaliga halaba oo waxaan ku rahdaayay xafiiska STC-da oo aanu iskuul ku leenahay qofkii doonaya carruurtooda hataa kuway markay reeraan baan kuwayga ka bilaabaya laakiin saddexda kaliya wax looma dhigi karaya idinkuna kuwiina keena waa markay ahaayeen 10 jir oo 10 jir meelahaas ilaa imikana weli okay qof walba okay buu odhanaya laakiin wax reebi isku taxalujiya ma jirto marka waxaan imika u idris sameynaya innaka inooma sameynaya waxaan rabaa carruurta halkan ama ku kortay ama ku dhalatay inay dhaqanka iyo afka Soomaaliga bartaan laakiin waalidiintii baa loo baahan yahay in ay carruurtooda u sheegaan inay muhiim tahay in af Soomaaliga bartaan sida loogu hadlo sida loo qoro si ay u fahmaan markaas suugaantii iyo wixii ka soo cusub muddana waa la hadlayay laakiin waynu eegi doonaa kolley arigaas qofkii danaynaya anuguna diyaar baan ahay abshood idris kalena diyaar yihiin markaa halaysa soo xidhay amaadsanta afkii aynu baro dhaqankii baro ila tahay taladaas in laga wada hadlo mar la isku yimaado odayaasha waalidiinta iyo hooyooyinku iyo dhalinyaradu ay ka wada qayb qaataan waxaan hadda siinayaa naadiga badso waa kuma bahalka inuu inaga dhaadhiciyo maanta agaasimaheeda waxa ay tahay waxa ay doonayso meesha ay u socoto yoolkeedu halka uu yahay kusoo dhawow idris maxamed cali si inoogu soo balbalaaliyo jawaabaha su-aalahaas kooban سند إبراهيم السلام عليكم. وبعد الله يبقى محدث كلام نقول علينا مثلا قرط بدل أكل لنا أنا أقول كهذا لنا سودان هي تقن كصومالية. طبعا وكهذا الدورة وحي بتسأل هذا هنا كهذا. لكن مرت كوبان وحشرك يا إنان sidoo kale u kulanno anagoo ka hadlayna suugaantii raaga ugaas gaar ahaan dhaqankii dhinaciisii ka hadlayna waxaasoo dhan anagoo ka wada hadli doono waxaasoo dhan sharaf bay ii tahay aad baanad u mahadsantihiin inaad kasoo qayb gasheen marka kale gubaabadii odaymadii aad buu ugu mahadsan yahay waanan ka qaatay dabcan hawl Soomaalidu waxay dhahdaa hawl haddii la wado haddii aan la isla wadin ma hagaagto marka hawshan haddaad aragtaan iyadoo hagaagtay ogaada in layla wado oon keligay aanan wadin oo aan ka sheekeyn doono insha allah dadkii soo qabanqaabiyey laakiin sideedaba hawlaha noocan oo kale ah waxay u baahan tahay qof baraarugsan af Soomaaligii og baahida loo qabo inuu ku tooso marka taageerada وقفك سوء بعينه هي طبعا وان وده جبنا وان سلا جبنا وان كدر سوء واحد إلى ذوي كلي جينا مع تذكر بدن السوء يعني أنا ويجوبان جمع سنة هنا نسكت نو وان واحد نول ولطابن كرسان ذكي إنه كارسينو حاجة ما كنت مع دوح برشلة ما كنت مع دوح حاجة كلا أنا ما سمعنا من قبل هاي كم التحقيقات كان كيو كلنا bulshada Soomaaliyeed ku kulmayso afkeeda qadarinta ay u hayso daraadeed talabaad Cabdiraxmaan soo jeedimihii uu soo jeediyay oo dhan waa ama su'aalihii la weydiiyay waa hawlo loo wada yaalo waa challenge ay tahay inaan ka gudubno insha Allah saan u maleynaya haddaan isla kulanno oo isla fadhiisano oo isla hadalno sida maanta aan isla hadlayno oo kale waan ka salgaari karnaa baahiyaha uu tilmaamay Cabdiraxmaan waxaan xaggan u istaagay inaan ka hadlo naadiga badso
badso waxay u taagan tahay barashada afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed marka la soo gaabiyo waxay noqonaysaa badso haddii aan Ingiriis ku sheego waxa weeye Somali Culture and Language Education taana marka la soo gaabiyo waxay noqonaysaa scale marka badso ayaan doonaya inaan idin yara kala furo intaanan sii guda galin astaanta ama sumadda badso waad xagga ku sawiranaya wareegsan shaambada yaa ii sheegi karaa haddii aad taqaaniin ama maxay xad u malaynaysaa inay tahay waxa dhexda aan u geliyey ama dhexda ku jirta aye ku gaadhi baaba soma waa sidaas sidaas wey ma maqasheen Cismaan Yuusuf Kennedy far Soomaalida Cismaan Yuusuf Kennedy xarafka ugu horeeya ba wey xagga ku dhex jira ba'na wuxuu taagan tahay barasho waa bilow waa noloshii oo bilaabanaysa barashada sana u dhahay qofka yaraantiisa ilaa intuu dhashay ilaa intuu ka dhimanaya waa mid la socoto oo la gaadhay sidii layga dalbaday waa maxay badso inaan ka hadlo wey ugu horreyn waa naadi dhaqameed waa cultural club markuu naadi yahay ma aha mid diiwaan gashan oo dowladda ka diiwaan gashan ama meel kale ka diiwaan gashan taana hawl inoo furan wey haddii anagu goosano anagay ku xiran tahay Soomaali ahaan inaan diiwaan galno ama saan anigu damacsanahay waxa weeye naadi taageeraya ururada Soomaaliyeed ee jira siiba wuxuu ka taageeraya dhanka afka hadday u baahan yihiin in af Soomaaliga la dhigo ay madal u hayaan naadigani wuu taageeraya wuxuu ku taageerayaa wixii la dhigayay iyo dadkii dhigayay badso waxaa la aasaasay sanadkii hore aragtida badso way ka horeysay dabcan markii la aasaasayay laakiin sanadkii hore ayaa la aasaasay masaajidkan gudihiisa ayaana lagu aasaasay waxaa aasaasay dad uu ka mid yahay Cabdullaahi Cashuur Ciise Kaamil oo inoo iman doona insha Allah Ibraahim dad fara badan oo dhalinyaro u badan dhalinyaro culus dhalinyaro yar labadaba isugu jira ayaa aasaasay oo waxay u aasaasayeen waxa weeye in uu isbedel ka sameeyo dhinaca af Soomaaliga Boston markay timaado isbedel muuqda inuu ka sameeyo dhinaca af Soomaaliga markaa badso hibilo ayuu leeyahay ama hadaf ama gool ama yool kolba saa u dhexday hadafkiisuna waxa weeye isagoo kooban kobcinta aqoonta qurbajooga Soomaaliyeed u yeelan karo afkiisa dhaqankiisa iyo sooyaalkiisa waa saddexdaas oo qofkii Soomaaliga ahaa ee ama qurbaha joogay kuwa dalka joogana way ka faa'iideysan karaan waayo waxyaabaha hawlaha aan wadno online baan gelina waan daabacnaa saas daraaddeed kuwa dalka joogana way ka faa'iideysan karaan laakiin muhiimad waxa weeye caruurteena qurbaha joogta dhalinyaradeenna qurbaha joogta waayeelkeena qurbaha jooga in inta la isku yimaado la iska kaashado sidii loo wada kobcin lahaa aqoonta guud ee aan u leenahay dhaqankeenna afkeenna iyo sooyaalkeena marka taas weeye himiladiisu marka sanad ka hor haddii la aasaasay ilaa sanadkan lasoo dhaafay muxuu qabtay su-aashu waa taas wuxuu qabtay ugu horeyn kulamo dhowra kulamadaas mid weyn oo xaggan aan ku bilownay baa jira sanadkii hore Siciid Saalax u yimid Siciid Saalax laftigiisa markii aan u yeedhaynay magaca badso maynaan lahayn iimayladii asdaafsanaynay ayay kasoo dhex baxday magaca waxaana ku guulaystay inuu magaca loo bixiyo Professor Warfa oo taqaaniin oo jooga London oo badso u bixiyay markaa Siciid Saalax ayaan u yeedhay sanadkii hore kulanku nala qaatay sugaantii nooga sheekeeyey wixii nooga sheekeeyey online ku jiraan YouTube baan gelinay waa daawan kartaan insha Allah marka qayb waxa weeye inuu kulamo qabto kulamadii kaas kaliya kuma ekeen sanadkan bilowgiisii maalinta af Soomaaliga loo dabaaldegay February 22 annaga iyo jaamacadda ururka ardayda jaamacadda Northeastern University
ayaa qabanay kulan waxaan u bixinay folklore Somali folklore celebration folklore-ka haddii af Soomaali laga dhigo waxay noqonaysaa hoobaado wax la yidhaha hoobaado folklore uu fara badan yahay wuxuuna la mid yahay suugaanta ama literature marka taas dabcan dad kooban baa ka soo qayb galay oo magaalada ma wada gaadhin laakiin kulan ay badso qabatay ay la qabatay weliba iska kaashadeen jaamacadda ururka ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda North Eastern buu ahaa kan baa ku xigay kulamaduna way sii socon doonaan insha Allah waxaan jecelnahay inaan u bedelno kulamadeena kuwa yaryar oo book clubs ah inta book la wada akhristo inta book aan maanta keenay oo kale dadkii iibsadeen inay dib isugu soo noqdaan intay meel fadhiistaan gorfeeyaan ka sheekeeyaan bookii taas ay kasii kubcdo bugaagta saas loo soo gaaraan anagoo waayo waxay taasi la socotaa himiladeena inaan aqoonteena kordhino soma aan kubcino marka kulamadu way socon doonaan insha Allah way yaryar kuwa waaweyn oo sanad la'aan way dhici doonaan waxaa dhinaca kale kaga jirta wax la yidhaahdo barista af Soomaaliga dad badan oo iminka ii muuqda af Soomaaliga way yaqaanaan aniga laftiga way iga badiyaan laakiin inaan soo nimaano oo wax weeye aan isdiyaarino si aan u noqon lahayn macallimiin af Soomaaliga bara dadka u baahan in la baro laftigooda inaynan uusanin inuu arkin inuu waxba jirin laakiin af Soomaaligu anaga dhexdeedu ku jira marka haddaan isu nimaano dejino manhaj gooniya waan dejin karnaa kabacdina waan samayn karnaa insha Allah marka baristu aniga gaar igu tahay oo soo barayay sanado fara badan iminkana waan sii wadayaa insha Allah xagaagan ugu dambeeyay laftigeeda waxaan 5 week ayaan marna heniga baan aroortii tagay marna masaajidkan baan class ku lahaa marka ardaydu si fiican arday Soomaali kaliya ma taasna waa inaan niyadda gelinaa marka Soomaaliga aan dhigayno Soomaali kaliya waan wadi karnaa iyo dad kalaba sababta waxaan joognaa waddan multicultural oo dadku jecel yihiin inay afka kala bartaan marka hadday rabaan waan ka qayb gelinaynaa sababta waa muhiim in afkeena la barto afka wuxuu u wanaag af qiimihiisa waxaa muuqda markaad aragto qof shisheeye ah oo ku hadlaya soo ma anagu dee nooma muuqana sababta wixii baan ku dhex jirnaa systemkii baan ku dhex jirnaa ma arki karno qiimihiisa iyo ahmiyadiisa marka iyo inaan u ashqaraano ama jeclaano laakiin qof kaloo markuu ku hadlayo sida Dr. George Capchits oo ah oday ruusha oo mahmahdeena ururiyey wuxuu mahmahda ka yaqaanana qof Soomaaliyeed yaqaanaan in kalimaan arag mahmahda iyo siduu u baaray waa cilmi dhan ayuu ku fadhiisiyey marka dadkaas oo kale inaan ka dhigano dadka aan barayna af Soomaaliga ayaa muhiim ama aan jeclaysiinay in af Soomaaliga yahay wax la baro kaalinta ugu ballaaran ee badsi ku jirto waxa weeye ururinta suugaanta marka suugaanta xagee bay ku jirtaa haddii la isweydiiyo maskaxaha waxay ku jirtaa waayeel qof waayeela markuu dhinto library baa naga gubtay so sidaa lama socotaan marka maskaxaha waayeelka lala fadhiisto qof walba hooyadii ayeeyadii intuu la fadhiisto wixii ay hayso heesaha sheekooyinka inuu ka qoro oo meel dhigo wey anigu taas baan sameeyey alxamdulillah suugaan fara badan oo laga bilaabo googaala oo suugaan caruureeda ilaa ta ugu dambaysa gabayada waan ururiyey qaybtii ugu horeysay baa laakiin daabacay oo dadka cid walba oo jecel aan u fasaxinay inay arkaan marka taasna googaalaha wey ilaa waxaan qoray 80 waxaan helay googaa ka badanna waan insha Allah waan rajeynaya inaan soo helo 80 googaa waan daabacay badso website leedahay idinla wadaagi doono ayaan ku daabacay ta ugu dambaysa suugaantii haddaan ururino seen u faafinaynaa waa muhiim soma sida suugaanta lagu faafiyo waa loo qimo inaad cod duubto ama de films ka duubto ood soo daysid iyo inaad qortid ood si qoraal ahaan ku faafisid marka badso afartaa buug ay idiin muuqda mid ka mida waa xaashi 4 page ah kuwa kale laftigooda bugaag culculus ama burburan maaha laakiin waa buug waxa ku duugan ay yihiin wax naga maqan oo u baahan inaan dib u raadacayno
buugga koowaad heesa ayaa ku jira gebi online-ka ku daabacan yihiin balse website-keeda laga helaya marka buugga koowaad 6 heesood oo ay ka mid tahay alif la kordhabay oo ay ka mid tahay calankeena iftiimay alamaanta ayaanta oo ay ka mid tahay heesta Soomaaliya toos oo isku tiirso hadba kiina taag daran taageera weligii heestaas ka hadlaysa sinaanta iyo qadarinta dalka ayaa ku jirta marka 6 heesood buuggaas ka kooban yahay buugga kale midabada ayuu dadku soo bandhigayaa 12 midab ee ugu caansan ee dadku adeegsadaan ayuu soo bandhigayaa buugga buluugu ku badan yahay ama midabka lafcirka ah uu ku badan yahay cad dul yaala buugga heeso buug maaha waa 4 page laakiin 100 su'aalood baa ku qoran sanadkii horena dhalinyarada waa ku tartameen waa 100 su'aalood oo deegaanka iyo taariikhda wax walba ku saabsan oo dhalinyarada ku tartameen baa ku jira waxa kale oo ugu dambeyntii dabcan buugaag kalena way jiraan aan soo wadnay inaan daawacno oo weli qoridii aan ku guda jirno iyo dhamaystirkoodii buuggan ugu dambeeya ku hadlay ururada dhulka ama dhulka dushiisa dhulka maxaa ku dulsugan dhulka wabiyaal baa ku dulsugan buuro bado xayawaano kala duwan wixii dhan buu carruurta u sharaxaya waa buug sawirro wataa marka xaggaas intaanan ka bixin istaageerideenu waxay keeni kartaa buugaag kaloo kale in la daabaco ardaydeenu inay gaadhaan istaageerideenu waxay keeni kartaa buugaag kaloo kale farshaxanka ay u baahan yihiin in lacag lagu bixiyo sababtoo ah buug aan sawir ku oolin carruurteenu wuxuu noqonayaa buug ma sababta buugaagka kale haystaan afkiis ku qoran sawirro fara badan baa ku qoran sooma qof farshaxana oo Soomaaliyeed oo naga mid ah oo qarsoon baa ku doonay jooga magaalada qofkaas oo kale la soo saaray waxaan nagala soo xiriiri kartaan 4taas meelood mar waa website-ka badso waa badso.org isaga haddaad tagtid kuwa kale oo dhan isaga ka dhex tegi kartaa talabaad waa warsidaha badso warsidee waa newsletter marka newsletter news ayaa maaha laakiin maqaalo ayaa ku qoran qoraallo qaarkii anigu daabacay qaar Ibrahim daabacay qaar qoraayo waaweyn sida George Cartridge uu daabacay ayaan soo daabacnay marka isaga laftigiisa hawl baa ku socotaa oo mashina sida la sheego sababta ah haddii uu baahan yahay inaad warsidee shidid waa inaad qoraalada heshaa waa inaad qoraayo fara badan heshaa marka istaageerideena iyo inaad Soomaaliga dib ugu noqono oo qorno farteedna iyo sida loo qoro waxay keenaysaa inaan qoraallo fara badan soo saarno waan website-ka kaliya maaha meelo fara badan aan shidno insha Allah ugu dambeyntii email-kani waxa weeye xiriir@badso.org marka haddii aad tala haysid haddaad waana haysid haddaad wax walba haysid halkaas aad soo diri kartaa dabcan marka website aad ku dirayso ama dee aad isticmaalayso website wax kaa fog badan oo haysta laakiin ha u qaadanina tan magaaladeena baa laga aasaasay aniga idin hor jooga maamula marka haddii aad su'aalo qabtaan aniga idin maraysa marka ha u arkin inay meelo kala tegaysa ama dee shisheey xayawaankaas yaa yaqaana wax lagu magacaabo ya aleel soma haeyo yes magacyo badan bay leedahay marka xayawaankaas sidee u socdaa hab nooceeya ma miyuu degdegaa mise aayar buu socdaa maanta aayar buu socdaa tallaabo yar marka hawlaha badso haddaad arki weydiin muuqan waayey aayar baan soconnaa marka insha Allah kunyar baan soconnaa kunyar socodku waa muhiim waan soo gabagabeynayaa marka aan soo gabagabeynayo waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo mahadnaq ma soo koobi karo dabcan dadkii ka soo wada shaqeeyay xafladda laakiin waxaan ugu horeysinaya hadda oo ku bilaabay idinka ka soo qayb galay qiimo weyn baad ku fadhidaan sababta haddaydan ka soo qayb galin wax noqona awr dhinac ka raba marka idinkaa dheeli tiray sheekada xaggan ka socon doonta insha Allah laba dadka idin hor iman doona ee idinla wadaagi doona waxaad taqaanaan iyo wax idinku cusubba dadkana aad u mahadsan yihiin waa codbaano ama waa lecturers ama waxa weeye khudbaday soo jeedin doona insha Allah waxaa
kaloo mahadsan bahda badso ay soo abaabshay sida Cabdullaahi Cashuur, Ibraahim Ciise iyo dhammaan dadkii ka geystay inay hawl soo qabtaan. waxaa kaloo mahadsan hooyooyinka ay ka mid yihiin Leyla iyo Faadumo oo dabcan soo sameeyey macmacaankan maanta isla dhici doona insha Allah. waxaa kaloo mahadsan in jaalahay oo la yiraahdo Maxamed Daali oo Tanzania u dhashay isaga kamaradaas maanta soo on ka soo eegaysanay ama soo amaaniyay kaasna aad baan u mahadnaqayaa. waxaan kaloo u mahadnaqayaa markaan falaayada sameynay meheradihii kala duwanaa ee loo ogolaaday inaan ku dhejino sida cashuur ay tahay ay ka mid ahay jubba kuwaana waan u mahadnaqayaa dhammaantood. sidoo kale falaayarka waxaa soo daabacday Wardheer News iyagana waan u mahadnaqayaa. ugu dambeyntii waxaan u mahadnaqayaa ISPCC oo si sharaf leh oo qiimo leh loogu ogolaaday inaan madasha amaad xaggan ku qabsano. marka anigu way ka dhan tahay aad baan mahadsantahay. asalaamu calaykum. aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa agaasime Idris ama Injineer Idris sidoo fiican oo noogu sharaxay codso aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. hadda waxaanu in badan baa la hadlay hadda hadal ma dhegeysanayna balaayo maxaa taxaq oo musamo ليس كامل يا نيوريا وناخيا تحكم إذا قبيلي سوتشي ونحن أبورة صوماليات ورير بستنا هاي لقينا موضة اسم